toddobaadka iyo dhextaalka wararka ugu waaweyn maanta waxaa ka mid ah Soomaali iyo Banglaadeshiyaan laga celiyay Malawi Iran oo si dadban uga hadashay xarkaha internetka daawadayaal aniguna waa libax barqiyay ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa caawa baahiyay oo soo bandhigay khariirad faahfaahinaysa oo muujinaysa fiilooyinka xambaara internetka ee hoos mara badda gaar ahaan kuwa dhex mara marin biyoodka Hormuz ugu yaraan 7% fiilo oo waaweyn ayaa hoos mara marin biyoodka Hormuz in ka badan 7% internetka adduunka ee wax gudbiya dalalka khaliijku waxa ay si weyn ugu tiirsan yihiin fiilooyinka ka gudba marinka Hormuz iyaga oo ka helay internetka haddaba haddii fiilooyinkaas la jaro ama ay waxyeelo soo gaadho internetka dalalkaasi si weyn ayay u saameyn doontaa Iran waxa ay si dadban ugu hanjabaysaa dalalka waxa ay muujinaysaa inay awood u leedahay inay waxyeelayso fiilooyinkaas taasoo khatar gelin karta isku xidhka internetka ee dalalka sida Saudi Arabia, Emirates, Qatar, Bahrain iyo Kuwait internetku maanta waa mid aan sinaba looga maarmi karin wuxuuna lafdhabar u yahay horumarka dhaqaalaha dalka khaliijka iyo isku xidhka adduunka oo dhan dawladda Malawi ayaa dalkeeda u diiday in ay galaan 5 qof oo ka soo kala jeeda dalalka Soomaaliya iyo Bangladesh kadib markii lagu eedeeyay inay wateen ama isticmaalayeen dokumentiyo iyo fiisa been abuur ah war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Malawi waaxda socdaalka iyo adeegga jinsiyadaha ayaa lagu yiri waxa ay xoojisay dadaalkeeda ku aadan ilaalinta amniga qaranka taasoo keentay in loo diido galitaanka dalka 5 qof oo ajaanib ah intii u dhaxaysay 16 ilaa 23 Abriil 2026 shakhsiyaadkan oo kala ahaa 2 Soomaali ah iyo 3 u dhashay dalka Bangladesh ayaa lagu qabtay Kalamazoo International Airport waxaana lagu qabtay dambiyo kala duwan oo la xiriira socdaalka iyadoo noqotay dhacdadii ugu horeysay 2 nin oo u dhashay dalka Bangladesh oo lagu kala magacaabo Abdul Mahfuj iyo Tawxiidul Islaam ayaa loo diiday inay galaan terminalka ay ka soo degeen ee garoonka caalamiga ah ee Kalamazoo kadib markii lagu helay inay haystaan fiisaha elektarooniga oo been abuur ah sidoo kale muwaadin Soomaali ah oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Kalamazoo kuwaas oo la socday diyaaradda Ethiopia Airlines ayaa lagu helay in ay iyaguna wateen ama isticmaalayeen fiisaha elektarooniga ah oo been abuur ah waxaana markii dambe dib loogu celiyay dalkii ay ka yimaadeen Khamiistii 23 Abriil 2026 muwaadin kale oo Soomaali ah ayaa lagu qabtay isla halka oo lagu helay fiisaha elektarooniga ah oo been abuur ah waxaana lagu celiyay isla diyaaradii keentay dalka Malawi laamaha socdaalka ee dalka Malawi waxay si adag uga digayaan shakhsiyaadka iyo ururada ku hawlan fududeynta iyo soo saarista dokumentiyada safarka iyo fiisaha been abuurka ah in hawlaha sharci darrada ah ay kala kulmi doonaan xadhig iyo awood sharci waaxda socdaalka waxaa ka go'an dhaqangelinta sharciyada socdaalka iyo hubinta dadka sharciga u leh ee loo ogol yahay galitaanka dalka Malawi ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Malawi